wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane danjire axmed macalin fiqi iyo wafdiga uu hogaaminayay ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka caalamiga ah ee aadan cadde kadib safar shaqo oo uu dibadda ugu maqnaa maalmahan. munaasabadda soo dhaweynta ah ee wasiirka waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, xogayaha joogtada ah, danjireyaal, odayaal dhaqameedyo, agaasimayaasha waaxyaha kala duwan ee wasaaradda iyo qaar ka mid ah howlwadeennada wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah. soo dhaweynta ayaa ahayd mid lagu bogaadinayo laguna taageerayo wasiirka kadib guulihii waaweynaa ee uu ka soo hooyay safarkiisii shaqo ee uu ku tagay xarunta qaramada midoobay, halkaas oo inta badan lagu falanqeynayay difaaca madax banaanida iyo wadajirka dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. waxaan rabaa halkaan maantay inaan briefing yar warbixin yar oo kooban aan ku bixinno oo ku saabsan shirarkii kala duwanaa wafdigii ra'iisul wasaaruhu hogaaminayay ee ka qayb galay shirka qaramada midoobay ee loo leeyahay ee ka dhacay magaalada New York, nambarkiisuna ahaa shirweynaha 79aad oo ilaa iyo bishii la soo dhaafay 10kii beri u dambeysay 22kii oo aan tagnay meesha ilaa iyo 30kii ayuu socday. aniga shir kale oo 3dii bisha ahaa oo golaha ammaanka ayaan ka qayb galay Soomaaliya ku saabsanaa. marka runtii shirkaasi guul weyn ayuu ahaa. wafdigaas ra'iisul wasaaruhu hogaaminayay ilaa iyo 40 kulan oo kala gaargaar ah iyo kulankii guud uu ku jiro ayaa la galay. qaar waxay ahaayeen ururada aan ku jirno, ururka jaamacadda carabta iyo Security Council-ka wada galay. qaar waxaan wada galnay ururka islaamka isaguna labaduba waxay ku saabsanaayeen arrinta bariga dhexe ka taagan ee colaadaha Falastiin gaar ahaan Gaza iyo Lubnaan oo marka dambe ku soo biirtay. labadaas kulan laba kulan oo guud bay ahaayeen. kulamada kale marka laga reebo kulanka qaramada guud oo qaramada midoobay oo ra'iisul wasaaruhu khudbadii ka jeediyay dhammaan la publish gareeyay. kulamada kale kulamo gaargaar ah ayay ahaayeen. runtii waxaanan qaarna ra'iisul wasaaraha gooni u galayay, qaarna annaga, qaarna waa wada jirnay, qaarna wasaaradda arrimaha dibadda iyo missionka meesha ergadeena meesha ayaa galaysay. kulamadaas ilaa iyo 40 ay ahaayeen, waxayna dhammaan ku saabsanaayeen marka la soo koobo dowladihii qaarkood waan beejajka waa la soo dhigay. waxay ku saabsanaayeen in Soomaaliya ay hadda ka gudubtay marxaladii hore ee u joogi jirtay oo ay gashay in aan qaramada midoobay golaheeda ammaanka inaan xubin ka noqonnay oo Soomaaliya loo doortay bishii Juun 6 sanadkan 2024 si rasmiyana aan Janaayada soo socota 2025 wala wareegi doono. 2 sano ka dambeysana aan halkaa joogi doono. halkaas marka 15 dowladood oo Security Council-ka ku jirtaan mid ka mid ah nahay. dowladahaas muhiimad gaar ah ajendayaasha caalamiga ah oo nabadda iyo dhammaan colaadaha si looga hortagayo iyo waxaas oo dhan baa la horkeenaa Security Council-ka waad ogtihiin. muhiim bay Soomaaliya ayay tahay. dowlado badan baa marka danaynaya. sanadkan marka uu ka duwanaa sanadihii hore, wuxuu uga duwanaa positionka Soomaaliya ay soo istaagtay iyo xubinnimada ay ka qaadatay qaramada midoobay golaheeda ammaanka ayuu uga duwanaa. taasaa waxay keentay kulamadeena ay ka bataan kulamadii sanadihii hore. dowlado ajendayaal bay leeyihiin, ajendayaal qaarkood ay rajeynayaan in la hor keeno, qaarkoodna waxay ka hadlayaan dowladdii Soomaaliya maadaama ay meeshaas fariisanayso inay hadda ay calaaqaad fiican ay la samaystaan. guud ahaan marka kullina kulamadaas waxay u adeegayeen danaha Soomaaliya ayay u adeegayeen iyo in danta Soomaaliya ay tahay ta koowaad oo annaga mar walbaba noo taalla, ajendaha kuwaad noo ah. danta ku xigtana ay tahay inaan ku matalayno bariga Afrika, inaan ku matalayno qaaradda Afrika, inaan matalayno ururka carabta oo aan ku jirno jaamacadda carabta
inaan sidoo kale qadaayaadka ururka islaamka oo aan ka mid nahay iyadana aan xambaarsannahay waxyaalihii khuseeya dhammaan marka lakabyadaas kala duwan oo bariga Afrika ka bilaabanaya ilaa iyo adduun weynaha ku dhammaanaya qadaayaadkooda kala duwan ayaan runtii la isdhaafsanayay marka guul bay ku soo dhammaadeen mar rabo inaan aad aan u galo waxaa ka mid ah kulamada aan wada galno muhiimka ah inaan muxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Masar iyo wasiirka arrimaha dibadda Eritrea inaan halkaas ku kulannay saddexda wasiir oo aan ka wada hadalnay arrimaha danaha dalalka saddexda waxyaalaha ay wadaagayaan iyo dhammaan mustajadaadka ama xaaladda bariga Afrika ama xaaladda dalalkaasi ku sugan yihiin maxwarna ay ahayd oo dubdhaxaad ay ahayd gardarrada Ethiopia ay kusoo gardarootay dalkeena ayaa dubdhaxaad u ahaa kulamada kale oo aan galnay waxaa ka mid ah runtii oo aan wasiirka arrimaha dibadda India oo dalkeena caafimaad ahaan ay u aadaan waxbarasho loo aado dhibaatana ay ku qabaan arrinta fiisaha sida loo helayo oo loo tago dalkeenu ay halkaan inta ka safraan ay Nairobi ama Addis Ababa ay tagaan taasna inaan niri halkaan in laga furo qonsuliyad fiisaha dadku halkaan ay u qaataan si ay u fududaadaan muwaadiniinta Soomaaliyeed oo dhibaatay safar kale iyo sugitaan dheer aysan u gelin arrintaasna runtii wasiirku u qaatay waxaan rajaynaynaa in arrintaasi ay soo fududaato dhankooda ay ku maqan tahay